wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa waxa ay sheegayaan in qaar ka mid ah goobaha ganacsigu ay xirnaayeen kadib markii sare uu kacay sarifka shilinka Soomaaliga marka lagu bedelayo dollarka Mareykanka suuqyada Puntland. Toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa sare u kaca sarifka waxa laga dareemayay suuqyada deegaanada Puntland. Maamulkana waxa markii dambe uu soo rogay in sarifka lagu jaangooyo 35,000 oo shilin halkii dollar. Wararka haddaba arrinta ku saabsan waxaa noo haya wariye Axmed Cawil oo jooga magaalada Garowe. suuqyadii magaalada Boosaaso maalintii shanaad ay xiran yihiin inkastoo maanta qaybo yar oo kamid ah ay furan yihiin oo sida suuqa qudaarta iyo lagu gado waxyaabaha qultu duririga marka arintan waxa ay kacday sida la socotid kadib markii madaxweynaha Puntland dhawaan wareegto uu soo saaray uu ku cadeeyay dekada magaalada Boosaaso in guud ahaanba lagu qaado lacag dollar ah oo la joojiyay lacagtii canshuurta ee lagu qaado jiray dekada magaalada Boosaaso oo dadku alaabaha kala duwan ay mararka qaarkood ay ku cashuuran jireen marka arintaas waxay abuurtay in suuqyadii la xiro ilaa iyo haddana wax xal ah oo laga gaaray ma jirto inkastoo dadaal ay wadaan duqa magaalada Boosaaso iyo waliba maamulka gobolka oo ku aadan si suuqyada dib loogu furi lahaa bariisku dadku waxay ku wargeliyeen in haddii suuqyada aan la furin ciidamadu ay tallaabo qaadi karaan hase yeeshee waxaa jira sariflayaasha qaarkood oo diidaya inay lacagta ay sarifaan inkastoo aysan cadeyn waxyaabaha ay ku qaban karaan shilin Soomaaliga markii la bedelayo lacagta dollar ahaan marka guud ahaan waxa muuqata magaalada Boosaaso wali arinteedu inay cakiran tahay marka balse dadaal ayaa socda waxa kale oo jirta sida la socotid dawladda ayaa jaangoysay sarifka dollarka waxaa lagu sheegay in laga dhigo 35,000 magaalada Garowe oo kaliya ayuu ilaa iyo hadda uu ka hirgalay maanta gacanta hore waxa uu ka marayaa magaalada Garowe 35 halka gacanta dambana uu marayo 34 marka waxa muuqata magaalada Garowe inuu ka hirgalay gaalkacyana waxa jirta in sarifku uu maanta uu ka marayo 4,500,000 4,600,000 laakiin wuxuu ka soo degay meeshii hore uu tagay oo ahayd 5 milyan ilaa iyo 6 milyan inta u dhaxaysa marka guud ahaan waxa muuqata magaalooyinka kala duwan ee Puntland in ay arinta sicir bararku ay saameysay hase yeeshee xoogaa ay dhaanto sidii maalmihii hore uu ahaa